maanta iyo maalintii aad iyo aad ay u kala wanaagsan tahay ilaahay aana mahaddaas iska leh waxaa tihiin dad aad iyo aad xumaanta u necab jecel inay xornimo iyo sharaf iyo karaamo ku noolaadaan adduunyadana waxaa ugu wanaagsan oo ugu qaalisan qofka bini'aadamka inuu xorriyad ku noolaado waxa aan raadihayno ama waxa laga hadlaayo qof in la dulmiyo maahan qof in lagu xadgudbana maahan qof in maartay dhibaato kale loo geystana maahan waxa kaliya hadda ka hor laba nin maartay isku shirbeen marka wuxuu dhahay baabuur isaar iyo ku saari ma jawaab isku haysanaa wiil annaga ya shabaab waxaan isku haysanaa nabadgelyo aan xor ahaanay iyo idin nabadgelyo isku haysanaa ma wax kale aan isku haysanaa wax kale oo ka gooni oo raadiyo weyna ma jirto war anaga ina xornimo ku noolaanaan rabnaa waxa la yiri geedaha falinina lacagna waa ka rabaa beertaada ha falana lagu yiri lacagna waa ka rabaa haddii intaas lagu yiri marka meesha aadaysa bal ii sheeg xagee la aadaa beertaada hadday xogaa ka ay fasalka fiicnaa weyso boodka ku xiga ku darsaa daamaagtid nooca lagu kuma dari kartid badarna waa ka rabaa lagu badarka laga rabo iyo lacagta laga rabo mid risaasa lagu gadaa midna calooshiisa ku shuba intaas ay u qaybsameen wuxuu gumaysaha gabdhahayna gumaysaha wiilashayna gumaysaha waxaan u maleeyahay halahan wiilalo meesha joogo si xornimo suuqan u imaan jiray markuu shabaab joogo sida maanta inuu hor taagan yihiin u imaan jiray ma soo imaan jireen gabdhahaasna sidoo kale intuu imaan jiray barkay waxay ka cabsay inay yiraahdeen islaamka ku jecel soo bax ay duurka ka wataan gabdhaha asay guriyooda ugu faka waayeen xatay waxaan runaa marka waxa aan raadihayno waa xornimo ma ahay wax kale inaan xor ahaano inaan rabno si sharaf iyo karaamo aan u hadalno xaqaynana u raadsanaan rabnaa ninkii ku diiday inaad hadashid ninkii ku diiday inaad mahartid aadid ninkii maalin kasta xoolo ku saartay ninkii maalin kasta inaad sida aad rabtid u dhaqantid ku diiday laba odo bun isla dubaysa ma aragteen sidee u yimideen nimankan odayaasha xataa waa kala dhunteen laba ma isu timaado waa la waay wax is salaamo waa la waay nin la arkay gurigiisa oo gala waana ka baxale sida dabagaaliya oo godkiisa galay kan soo baxayle qof kasta naqatay waxaan runaa marka waxaan u dagaalamayno waa xornimo waa gobonnimo waa sharaf iyo karaamo iyo in xornimo ku noolaa ilaahay diinta banaysi in kitaab qof bil aadan oo akhriyo loo kordhili diinta banaysi intay taala shabaab ay yaqaan qof kale oo taqaan ma jirto asoo masaajid ka soo baxo irida masaajidka taagan in haddana xabad ruush lagu yiraahdo oo meesha la dhigo yaa yaqaan diinta taqayaa shay karo kitaabkaas shabaab ay yaqaan waxa ay wadaana diin maahan waxa ay noo sheegayna diin maahan meelaha ay ka taliyayeen waxyaabo ay uga tageen fool xumadooda hadaa aragtiin idinka nixaysiin nimankaas waa nimanka aan rabno inaan wadankeena ka saarno waa laga saara wadanka maanta deegaankan aad idinku ilaahay idinku makaniye u maleeyma maanta inay ku jiraan bas shabaab ku jiro meel ma ku ogtiin oo deegaankiina kamida codkiina waa yar yahay qaar ogaa u maleeyaa qaar og ma idin ku jiro meel ay ku jiraan yaa og hadda waxaan rabnaa markii inaysan ugu soo naqan oo si sharaf iyo xornimo iyo karaamo la u noolaano oo aan meesha rabna atii karno oo labada dhalinyaro isla socon karaan oo labada oo isla bunduba karto oo qurbaan la sameeysan karo oo wax kasta la sameeysan karo waa inaan nimanka qawaariijta iska celino oo sharafkeena karaamadeyna meel uga dhacay laba nin oo isla dhalatay ama wiil iyo aabiis wiilkana waa muslim kana waa murtad nimanka anagana yiri wax loo dul qaada kara maahan wax la maqli karana maahan sidaasaana noo balama hergeyf aad iyo aad u mahadsantiin sida aad u timideen oo mugale waa la idinku yaqiin waa ognahay dadka maalinta inta imaahayne isla eedada inta nooga orday asay gurigaas naga gashay kaal soo dhacay anaga orday ma ogin xumaan ma waxay nooga ordayso wax ay nooga ordayso xumaan maahan niceeb maahan anaga ma nacbo laakiin fiiri maskaxda dadka laga gumeystay waxa anaga naga dhaadhacday nafta inay shabaab haayaan nafta illa subhanahu wa ta'ala haayo qof hayso kale inta ma jirto aniga shabaab maalintii xamar ka soo bilowdeen ilaa hadda dagaal anaga dhixi gurigayga waxay u jiraan garaskaan oo kale waan is dagaalin garas geedkan muxuu yahay geedkan weyn oo gadaashiina geedkan oo kale ii jireen gurigayga u jireen dagaalkii meesha aan soo bilowno ilaa hadda waa isdaba joogna
naftana ilaaha gooyo qof kale oo gooy karta ma jirto nin sidaada oo 9 bilood ku dhashay oo qoragaas wato haddaad u malayso inuu nafta gooy karo nafta rabbi subxaanahu wa ta'aala gooyo cid kale oo gooy karta ma ilaahay hadduu sabab kaaga dhigo sababu kaaga dhiga adoo xatay xabad sameyn ama wax sameyn shabaab dimbila u tahay